السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن dhegeystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada taxanaheeni sheeka halgameedaha dareemin geerida qaybtiisii 10aad. Dhegeystayaal qaybtii 9aad waxay noogu joogtay Cabbaas iyo saaxiibadii oo Jawhara ugu soo afmeeray sheekada inay guur diyaar u yihiin. Haddaba Jawhara maxay kaga jawaabi doontaa? Waxayna ku bilaabanaysaa qaybta 10aad. Miyayna suuragal ahayn in looga badambeeyay oo ballankii iyo jacaylkiiba duufaanka xoog badani hawada ku dartay. ileen hore loo yiri ka saween oo ka badhuursi rakaaga dambeeyay kaad ogeed ma aha. Way jirtaa laakiin waa ka yaab arrinkuna saas uu ka duwan yahay. Jawhara dabuubtii u horeysay afkeeda ka soo baxday waxay noqotay hawraarsan iyo gudoon. Halka aad talada ku goyseen anna ima dhaafsana. Waxayna sii raacisay odaygii aabaheedaha inuu reerka ka maqan yahay oo uu shalay magaalada u dhaadhacay. habeen dambana la dhowrayo inuu soo dheelmado hadduu eeba ogolaado. habeenkii reerka waanu ka dhaxnay. waxaanu wax iska weydiinay warka sheekha ka soo yeedhi doona marka aanu la fadhiisanno ee aanu deexanno. duqii reerka waa yimid, farrintanadiina way gaadhay. galabkii dambe ayaanu annaguna ku soo carrownay reerka oo dhowr foof adhinoo jiray. maqribkii ayaanu ku tukannay meel aqallada u jirta qiyaas ahaan inta qoriga ah K47ku wax ka dilo. markaanu reerka soo dul joogsannay, ruuxii ugu horeeyay wuxuu noqday rafiiqii Jawhara. waa xaali oo duleedka reerka awr dabarka kaga furaysa. xog ogaal bay ahayde markaanu isnabdaadinay ayay cod dabacsan nagu tidhi halkiina iska jooga intaanu idinka yeedhi. wax yar kadib ayay nagu soo noqotay iyada oo sida fariin la soo faray falaas ahna dalminaysa. xaali egtanada ayay soo fadhiisatay. xogaa ayaanu halkii ku sheekaysanay reerka xaalkiisana way nooga warrantay. sheekhi wuu joogaa sidii munaasabka ku ahaa ayuu wax u socdaa. anna hawshaas ayaan ka qayb qaadanayaaye fasaxa ayay tidhi. annana waanu fasaxnay. si gobonnimo iyo sharaf ku dheehan tahay ayaa naloo qaabilay. sharafkii reerka lagu sheegi jiray ee maqallada nagu ahaydna caawa reerku ka dhabeeyay. reerka ka koreeya ayaa darimooyin naloo fidiyay. ceesaamo kurka loo caseeyay hilbahoodii ayaa naloo wadhay. doobkayaal xoor lahna waa la soo qotomiyey. reerku waxaa reer sharaf leh, annana waxaanu ahayn marti sharaf leh. waxaa habboonayd sidii munaasabka ku ahaa in ay nala socdaan odayo xigto u ah wiilka gabadha soo doonay. waanu jeclaan lahayn siduu dhaqanku ahaa in aanu Jawhara u soo doonno, laakiin duruufaha halganka ayaan noo saamaxaynin siyaabo badan oo laftannada nala quruxsanayd. sheekhii Jawhara dhalay oo keligii ayaa meeshii noogu yimid oo gogoshii nagula soo fadhiistay. haybadda wadaadka saaran ayaa naga xishoodsiisay. salaantii aanu radinay mooyee wax kale waanu dhihi kari weynay oo hadalkiiba nagu margaday. oo ma nin soo hor fadhiistay oon karaamadiisa la qarqarin baa jira. haba ka yaabin. sheekhu waa nin khiyaar ah oo aad u dabeecad wanaagsan. qadarinta iyo xushmadda uu bulshada ku dhex leeyahay waxaa ka badan jacaylka loo qabo ee uu ka kasbaday. carar kaftan u badan oo dhiirani aanu ka helay ayuu hadalkii noogu furay. wuxuu qisooday dhacdooyin hore oo waayo aragnimaduusi ay ku sintay iyo sheekooyin xiiso badan oo ku qotoma halganadii kan aanu u darbannahay ka horreeyey. intaa markuu noo dhameeyay ayuuna su'aalay, warrama oo ugu horreyn magacyadiina ii sheega. Faysal oo soo koobaya hadalka ayaa magacyadanadii u kala sheegay, ugana tibix siiyey qasadkii aanu ugu nimid iyo ninka gabadha ka calmaday. sheekhii ayaa hadalka qaatay oo yidhi, mahmaa ayaa ahayd nin gabadh kaa soo doontay wuxuu ku ammaanay 12 awow. sidaas darteed waad ku mahadsan tahay. isagoo hadalka sii wata ayuu Cabbaas su'aalay, adeer reerkiina meeshuu degaa? markaasuu Cabbaas oo xishoonayo cod hoose ugu celiyey, jeedaalo ayuu degaa adeer. sheekh Cabdikaynaan ma taqaanaa? ayuu mar kale duqii weydiiyey. naftii huraha haawa adeerkay rumaad. ujeedka sheekhu malahayga waa inuu ogaado qabiilka naftii huraha oo si toos ah inuu u yidhaahdo adeer qolamaa tahay ma wuxuu diiday ayaa jira. waa maya jawaabtu, balse wuxuu og yahay in qabiilku mamnuuc ka yahay jabhadda dhexdeeda. sidaa darteed waa inuu si kale oo uu ku ogaado su'aasha u dhigo. oo horta maxaa muhiimad ah oo ku jira ogaanshaha qabiilka? adba isweydii. intaa kadib sheekhii wuu aamusay
malaha wuxuu su'aalo kale oo ilka case weydiiyo oo maxay noqon doonaan. Waxaan ka baqaynaa su'aalo kale oo haddii uu sheekhuna weydiin lahaa jawaabtoodu nagu adkaan lahayd. Waxaase iigu darnayd xageed ku dhaqan oo ay sii daba taallo sidee. Ugu dambayn waxaa afka sheekha ka soo baxday, waan idin aqbalay, waana isu meherin wiilka iyo gabadha. Kolkaasay jidhiidhaco tin iyo cidhib jidhkayga saaqday, ilmo farxadeed oo burburanna indhayga soo buuxisay, oo sheekhii i hor fadhiyey aan la arki waayey. Muxuu saasoo dhan noogu wanaag falay duqu? Ugu yaraan muxuu xoolo noogu xidhi waayey ayaan isweydiiyey. oo ma qoriga iyo baylka jabadda ayaad siin lahayd mooyi. Xoogaalnimadiisa, diinta uu bartay iyo halganka uu raalli ka ahaa awgeed ayuuna noo weydiinin su'aalo badan oo la isweydiin karay. Sheekhu weligiiba gabadhtiisa nin ka soo doontay muusan u diidin, shuruuddiisuna keliya waa in uu ku qanco ninka gabadha ka soo doontay diintiisa iyo akhlaaqdiisa. Shuruuddaasina waa tii uu rasuulkeennu sallallahu calayhi wasallam ku dardaarmay. Sheekh Faarax ayaan idiin soo diray suga, ayuu sheekhi nagu yidhi. Salaandii ranna wuu nagu sogootiyey. Sheekh Faarax muxuu ahaa ayaan idhi. War naga aamus doqon yahow, ayuu Faysal iigu jawaabay. Wuxuuna ii sii raaciyey waa sheekhu isagu wakaashay oo gabadha inoo meherin doona. Sheekh Faarax oo laxaadsanaya ayaa noo yimid. Degdeg inta uu meheriyey ayuu isna namcal salaameeyey. Sidii ayay ku galeen aroos aan loo mashxaradin, durbaan loo tumin, lagu dhaantaynin, gaafna haba sheegin. oo meher xad baynu maqli jirnay, kani ma aroos xad baa? Wax kale oo la yidhaahdo garan maayo. Muddo 10 habeen ah ayuu Cabbaas dheer habeenkiina caruus ku ahaa, maalinkiina annaga uu joogaha nala harsanayay. Arooskii markuu dhammaaday ayaanu subaxii dambe reerka ka jarmaadnay. Barqadii markay tahay ayaanu u tagnay unug ciidankanagii ka mid ah oo meel qarri ah degan. La soco qaybta 11aad iyo sheeko halgameed Dahareemi Geerida.